kulanti wacan oo wanaagsan daawadeel kuna soo dhawaada janalkeena ka wararka aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada ugu waaweyn waxa qayb ka noqon doona guddiga Ra'iisul Rooble oo magacaabay xubnihii golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ay ka cabanayeen ee ku jiray guddiga doorashooyinka lagu marinsan yahay oo ugu dambeyntii la shaaciyay magacyadooda isla markaan laga saaray hadaba xog ku saabsan ayaa daawo doontaan Amisom waxa ay war culus ka soo saartay duqeymihii ciidamada Kenya ee ka fuleen gobolka Gadow ay ku xasuuqeen dadka shacabka ahaa hadaba eedeynta Amisom u jeedisay Kenya iyo xaqiijinta arrintaas inay jirto labyaansheeda ayaa soo kala daawan doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyay doorashooyinka Soomaaliland ee gobolka Maroodijeex oo markaas dad mas'uuliyiin taariikhi ay ka galeen hadaba yaa ka mid ah shakhsiyaadka ku soo baxay doorashada gobolka Maroodijeex halkan ayaan ku soo gudbin doonaa soo kale waxaa daawan doontaan isbedel weyn oo lagu sameeyay agaasimihii wasaaradda warfaafinta isagoona xilkii laga qaaday mas'uulkana la magacaabay hadaba amar ka yimid madaxweyne Farmaajo ayaa ku suura gashay waxa ay ka digayeen midowga musharaxiinta iyo Ra'iisul Rooble oo markaas aan loo madax banaanin shaqadii loo igmaday hadaba wararkii ugu dambeeyay ayaan soo kala idin soo gudbin doonaa qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa saaxiibayaal iyo warar kale gobolka Geeska ku saabsan fadlan haddii aad ku cusubtahay subscribe ku saartan balkan furtuna shir garee saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo markaas kumatiga يلا جنا نوريب يا أدب دماسنتين عن كل لونه ودي حقيقتها حبناها جديدة مركز الدورشوين كأيو مقعبة مصر رابلي هي كل واقع سلطني أفرح بنوط ولا جسر إليس كجديد الدورشوين كهركو ذكر الدوان لما يا مركي بدو مشرحين تبحروا در رابلي وسوق البين لا يلحدن يتوقفون ويسابوا يكر الدوان يوقع عودن وأسوق كنا للشيكين كترسين شغالها دولة ciidanka iyo saraakiisha ka tirsan kuwa nisa eedeyntaas ayagoon loo jeediyay ayaa lagu sheegay inaysan ahayn dhaxdhaxaad guddiga xaqiijinta xubnaha guddida doorashooyinka uu magacaabay Masar Roble ayaana ku dhawaaqay in 34 qofood oo markaas ka mid ahaa xubnihii la soo magacaabay ay baaritaan dheer kadib ay sameeyeen ay ku yeesheen eedeyntii loo soo jeeday ayna u kala direen maamul goboleedkii soo magacaabay xafiiska wasaaraha oo qaarkoodna laga soo magacaabay guddiga ayaa sheegay in muddo 48 saacadood gudahood ay ku soo magacaabaan xubnihii bedeli lahaa 34 qof oo guddiga soo gudbiyay ila wareegto ugu kalsoon yahay ayaa waxa ay sheegeen in xubnaha la qorsheeyay in guddiga laga saaro ay markii hore ahaayeen ku dhawaad 45 xubnood hase yeeshee xilli dambe ay soo baxeen cadaadis xoogan oo la saaray xubnaha guddiga xaqiijinta ayaana ayadoo markaas mas'uuliyiinta miisaan culusna ay ku dhigeen in xubnaha qaarkood loo daayo guddiga xaqiijinta ayaana la filayaa inay dhawaan ay si rasmi ah u shaaciyaan magacyada xubnaha 34 ee guddiga laga saaray dhinaca kale xubnaha midowga musharaxiinta ayaana laga sugay inay ka falceliyaan go'aanka guddiga xaqiijinta ku sii daayeen 33daasi ka mid ah xubnihii ay cabashada ay ka keeneen mana cadda inay aqbali doonaan iyo in kale mar kale haddii ay doonaan in Ra'iisul Rooble ay ku celiyaan si talaabadaas ay aqbalaanna waxay noqonaysaa mid ka mid ah guulihii markaas ay ka gaareen dhinaca madaxweyne Farmaajo oo u muuqday in guddidaas ay u madax banaanadaan isla markaana ay dhankiisa ay ka socdeen waxaana eedaha ugu badan ay ka imaanayeen in xubnahaasi ay ka yimaadeen saraakiisha hay'adda nisa iyo xafiisyada dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo lagu tilmaamay inaysan ka ahayn dhaxdhaxaad arrimaha doorashooyinka ee loo igmaday dhinaca kale haddii aanu adno saaxiibayaal midowga Afrika ayaa war ka soo saaray duqeymihii dhawaan ciidamada Kenya ay ka fuleen gobolka Gadow ayna ku xasuuqeen dad shacab ah oo waxba galabsan bayaan ay howlgalka nabadgelyada Amisom ay soo saareen ayaa waxa ay ku sheegeen in baaritaan ay ku sameynayaan duqeyntii ka dhacday gobolka Gadow iyadoo markaas la tixraacayo hadalkii qoraalka ay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga ee caalamiga dowladda federaalka ay ku aadanaha duqeyntii diyaaradeed ee ka dhacday gobolka Gadow wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa ay ku adeeysay inuu dal ka tirsan Amisom ku lug lahaa duqeyntii diyaaradaha ee lagu dilay dad rayid ah oo ku nool gobolka Gadow qoraalka ay howlgalka Amisom ay soo saareen waxa ay kaloo ku sheegeen in ay ku hoolayeen ururinta warbixinada la xiriira duqeyntaas isla markaana ay si dhow ula shaqeyn doonaan dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo daneeyaasha kale in ay Amisom ay baarayso dhacdadaas dhinaca kale Amisom waxa ay sheegtay in ay ka go'an tahay baaritaanada dhammaanba eedeymaha la xiriira xadgudubada xeerkasta uu yahay ee ka dhan ah ciidanka oo shaqeeya daliskooda Soomaaliya ugu dambeyntii hadalka qoraalka ee ka soo baxay Amisom waxa ay ku muujinayaan in ay ka go'an tahay baaritaanka buuxa ee duqeynta diyaaradeed ee Amisom lagu eedeeyay ee ka dhacday gobolka Gadow isla markaana ay baaritaankooda la wadaagi doonaan dhammaan badanayaasha ay arrimahaas qusayso si kastaba ha yeeshee duqeyntii diyaaradeed ee dhawaan la beegsaday deegaano ka tirsan gobolka Gadow
ayaa waxaa lagu eedeeyay inay ciidanka Kenya geysteen inkastoo aysan dowladda Kenya weli ka hadlin eedeyntaas kaga timid dowladda federaalka ee Soomaaliya ee markaas lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen duqeymahaasi ka dhacay gobolka Gadow ee dadka shacabka ahna lagu xasuuqay qabiil dhexe ayaa daawanaysan jalkeena ka wararkeena si toos ah ugala socotaan haddii aad ku cusubtahay saaxiibayaal fadlan gambalaalka furta subscribe-ka saarta una sheegaray saaxiibadii meel kasta ay joogaan idinku markaas commentiga like-na inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin markana Somaliland waxaa lagu dhawaaqay natiijada doorashooyinkii golaha deegaanka degmada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliya iyo golaha wakiilada ee gobolka Maroodijeex oo saacadihii u dambeeyay si weyn loo wada sugayay natiijada la shaaciyay ee Hargeysa iyo golaha wakiilada ee gobolka Maroodijeex ayaa noqonaysa midii ugu dambeysay ee degmooyinkaasi hordhaca oo shaaciyo maadaama degmooyinka iyo gobolada kale ee Somaliland ugu dhawaaqay natiijooyinkii hordhaca ahaa ee golayaasha deegaanka sida aan ogaanay saddexda xisbi oo si weyn ugu loolamay magaalooyinka Hargeysa ayaa waxaa hogaanka u haya xisbiga mucaaradka ee Wadani oo helay 7 xubnood waxaana ku xigay xisbiga Kulmiye oo isaguna helay xubnood halka xisbiga Ucidna uu helay 4 xubnood natiijada golaha wakiilada ee gobolka Maroodijeex ayaa aydan la shaaciyay waxaana uu xisbiga Kulmiye helay 8 xubnood halka xisbiga Wadani uu helay 7 xubnood iyo Ucid oo helay 5 xubnood natiijooyinka golaha deegaanka degmada Hargeysa iyo midka golaha wakiilada ee gobolka Maroodijeex ayaa si weyn loo wada sugayay maadaama uu yahay gobolka ay ka soo baxeen xubnaha ugu badan ee golahaas isla markaana ay si weyn ugu loolameen xisbiyadu waxaana taariikhda ka galay doorashooyinkaas ku soo baxay golaha deegaanka ee Somaliland gaar ahaan gobolka Maroodijeex farqa jaamac xisbi batuun oo kamid ah musharaxiinta u tartamaya golaha wakiilada Soomaaliya ee ka sharaxan gobolka Maroodijeex wuxuuna ka soo muuqday liiska xubnaha ugu horeeya ee ku soo baxay natiijada hordhaca ah isagoo noqday xubinta koowaad ee ka soo baxay xisbiga Wadani guddiga doorashooyinka oo markaas ku dhawaaqay natiijada xalay ayaa markaas waxa ay shaaciyeen barqad batuun uu ku soo baxay codad gaaraya 20,231 cod barqad batuun ayaa noqonaya xildhibaankii ugu codadka badnaa golaha wakiilada Somaliland maadaama uu ku soo baxay tiro 3 jibaar ah ka badan xildhibaanada ay ka soo wada muuqdeen liiska musharaxiinta ku guuleystay golaha wakiilada Somaliland wuxuuna ka mid yahay dadka la heeb sooco isla markaana la fuquuqo isla markaana dadka aadka qabiilka loogu dhibaatay ka mid ah waxaana taariikhda ay noqonaysaa in markaas dadka reeb sooco ay noqdeen kuwa markaas ugu badan natiijooyinka hordhaca ah ee markaas si weyn ugu soo baxay golaha deegaanka iyo wakiilada gobolka Maroodijeex ee Somaliland doorashadii halkaas ka dhacday qabiil gabagabada jalkeena ka wararka ayaa daawanaysan saaxiibayaal haddii aanu markaanu eegno saaxiibayaal oga aan helnay ayaa sheegay in agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Naasir Xuseen xilka laga qaaday cidna la magacaabay agaasimo cusub Abdullaahi Maxamed Xayir oo hore u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga ayaa la sheegay in loo magacaabay xalay xilka agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta waxaa hore idinla wadaagnay inuu jiro cadaadis dhanka madaxtooyada gaar ahaan xafiiska madaxweynaha ugu imaanaya wasiirka warfaafinta Cusmaan Dube kaasoo in la bedelo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo dhammaanba agaasim waaxidada wasaaradda xafiiska madaxweyne Farmaajo ayaa aad u dhibsaday hanaanka tiftiran ee qaaday warbaahinta qaranka oo tan iyo markii mas'uuliyadda ammaanka iyo doorashada uu wareejiyay madaxweyne Farmaajo si siman u timinaysay wararka mucaaradka iyo muxaafadka nidaamka dhexdhexaadka ayaana la sheegay in xafiiska madaxweyne Farmaajo uu arko mid caqabad ku noqon kara oo liiso doorasho maadaama doorashada soo socota kaalin muhiim ah ay ka ciyaari doonto warbaahinta qaranka xogtan ayaa waxa intaas ku sii daraysaa in qorshaha isbedelka la damacsan yahay wasaaradda warfaafinta intaas ka balaaran yahay waxaana socdaha qorshe agaasimaha cusub ee xilka ugu qaadi doono agaasim waaxidada TV-da raadiyaha iyo wakaalada wararka ee Zona arrintan ayaana waayahan aad isha loogu wada hayay maadaama isbedel badan oo dhanka taftirka laga sameeyay warbaahinta qaranka oo si siman ay u qaadanaysay wararka musharaxiinta iyo siyaasiyiinta kale ee mucaaradka iyo muxaafadka aba guud ahaan daawadaal waa intaa wararkii waaweyn ayaad kala socotaan jalkeena ka wararka badan haddii aad nagu cusubtahay subscribe ka saaro gambalka furo una share garay saaxiibada meel kasta ay joogaan idinku markaas commentiga like-na inoo reebaya aad baad ugu mahadsantihiin la socoshada iyo weliba daawashada muuqaalada quruxda badan ee ku saabsan dibdhiska dalka halkaana aan ku soo gudbino halmaamin inaad markaasi u dhiirigelisaan inaad subscribe ka saartaan una share garaysaan saaxiibadiina meel kasta ay joogaan aad baad u mahadsantihiin